وزير waxaan kaga mahadcelinayaa 3 sano hadda dhaaftay sidii wanaagsaneyd ee aad u soo maamuleyseen wasaaradda maaliyadda cashuuriya aad u soo bixinayseen mushaaradii iyo adeegii dawladda ay ku soconaysay laakiin mar haddaan iraahdo laakiin wixii hore waa burinaysaa sanadkan waxaa dhacay wix ka bedelan wixii hore haddii aan wareysanay guddigii noo qaabilsanaa maaliyaddana nooma sheegin wax isdhin dakhli ah riboodkii halkan uu wasiir ku-xigeenka fiqi naga siiyey sanadkan waxaa jiray isdhin 15 haddana waxaad moodaa in adeegyadii iyo mishaaradii la leeyahay wax badan oo isdhimay ama dakhli isdhimayna nooma sheegin marka su'aasheedu waxay tahay inkastoo ay la xiriirta aan dareemayay su'aashii uu weydiiyey abubaraa maxaa isbedelay maxaa keenay hoos u dhacan iyo in dhaqaalihii mishaaraadkii iyo adeegyadii dawladda la bixin waayo ayadoo aysan jirin isdhin dhaqaale oo aad noo sheegi kartaan oo baaxad leh uusan jirin su'aasheeda labaad waxay tahay wasiirkaan rabaa inaan weydiiyo wasiir ma jirtaa in dawladda imaaraadka ay ku kabto miisaaniyaddeenna lacag dhan 700,000 oo kab miisaaniyadeed ah haddii ay lacagtaa jirto maxay uga muuqan weyday miisaaniyadda haddaysan jirinna naga shaafi arrintaas waxaa kaloo rabaa inaan weydiiyo wasiirka weliba si qaas ah xisaabiyaha guud bay u qusaysaa waxaa jirtay in BDWOL khidmaddii ay qaadan jirtay la joojiyey muddo sanad hadda ka hor akoon gooniyaa loo sameeyey akoonkaa la hoos keenay xisaabiyaha intaan ka ogahay ma naga siin karaysaan qarashaadkaas maadaamaan ognahay inaan BDWOL hadda waxa la siin lacagaha meeshay ku baxaan dadka laga qaado ma noo sheegi karaysaan su'aasha ugu dambaysa waxay tahay mudane wasiir tenderka hay'adda qandaraas bixinta kambaniyada doonaya qandaraasada inay xareystaan waxaa laga qaadaa canshuur baa laga qaadaa canshuurtaas oo ay tenderka iyo wasaaradda maaliyadda ay qaadi jirtay waxaa ku soo korodhay kambani qaada $60 oo kambani walba oo qandaraas xareysanaya ka qaada $60 kambaniga waxaa la yiraahdaa Som Surface baa la yiraahdaa kambani walba oo qandaraas xareysanaya waxaa laga qaadaa $60 $60 wasaaradda maaliyadda ma qaado kambanigaas toos u qaata haddii aan weydiiyey gudoomiyaha hay'adda qandaraas bixintana wuxuu ii sheegay kambaniga inay u keeneen wasaaradda maaliyadda qaasatan wasiirka uu u keenay wasiirkana amar ku bixiyey kambani walba oo xareysanaya qandaraas in $60 kambaniga uu siiyo arrintan waxaan rabnaa wasiir inaad nooga jawaabtid haddana waxaad tidhaahdeen canshuur aan golaha soo marin iyo lacag aan golaha soo marin oo shacabka laga qaada ma jiro arrintan inaad iswaafajisid baan rabaa aad baad u mahadsan waa mahadsantahay gudoomiye xildhibaan cali cabdiwaaxid isagoo mahadsan laba su'aalood buuna weydiiyey midda miisaaniyadda waxaan u wareejinayaa agaasimaha miisaaniyaddan weydiinayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa in miisaaniyad isdhin jiro taariikhda haddaan dib u baarno lacagta soo xarooto maalin walba wasaaradda maaliyadda waa wax cad oo ku soo dhaca systemka qaal cali cabdiwaaxid baa igu horeeya ka horna ma maqal kadibna hadda maaqa inaan maqli doono miisaaniyadna iguma jirto imana soo gaarto wasaaraddana ma soo gaarto waa tii odagoo kale cabdiweli ninkii yiri baa laga rabaa waxaa soo haray DBWOL lacagteeda DBWOL heshiis baa lagula jiraa heshiiskeedii baad rabtaan lacagteeda mar baa la isqabtay meel baa loogu ururinayay iyagaana laga rabaa sidii ay u isticmaaleen markii loo wareejiyey waxaa la weydiinayaa iyagu siday u isticmaaleen miisaaniyadda iyo xeerka dawladda midna kuma jirto haddii laga hakiyey markii la heshiiyeyna lacagtooda iyagaa lahaa say u isticmaaleen إن يجعل ويدينيا وحلا العكتين يسوي استعماشين حرر كذي بأنا بسوي سنينه هل كاس على جرها هنا يكتم عضو أنا جميل نجا مسوق شو
qandaraaska hay-adda uu yidhi xildhibaanku wasiirkaa yidhi abshir baan rabaa inaan ka jawaabo anu garan mayo cid aan idhi idinku intaad dadka dhinaca ka istaagtaan lacag ka qaada lacagtana idinku yeesha cid aan idhi garan mayo xaashaa lilaahi mana samayn karo waxayna noqonaysaa ceeb haddii la yidhaahdo wasiirkaa waxaa sameeyey oo wixii la waayo ceeb bay noqonaysaa abshir waxaan rabaa inaad caddaysid shirkadda uu magaca ku sheegay oo wasiirku siiyey oo yidhi dadka lacag $160 ka qaada anuguna u sharciyeeyey oo anugu sharcigii aan gacanta ku qaatay hay-adda qandaraas bixinta dowladda puntland waxay ka mid tahay hay-adaha dowladda ee qaada khidmadahaasoo aysan wasaaradda maaliyaddu aysan maamulin oo hay-adahaas ay maamulaan miisaaniyad dowladdana aan ku jirin sidaa darteed hay-addaas lacagta ay qaado annagu xisaabteeda iyo maamulkeeda shaqo kuma lihin waa cabashooyinka aannu ka hadlaynay hay-adda keliya oo u qaabilsan dowladda puntland qaadista canshuuraha iyo nidaaminteeda waa wasaaradda maaliyadda meelaha gaabis ka jira oo u baahannaha inaad ka baarlamaan ahaan aad naga caawisaan waa arrimahaas waxaa jira in guddi uu madaxweynuhu u magacaabay oo tala ka soo bixiya hay-adaha dowladda ee khidmadaha qaada hay-adahaasay ka mid tahay annaguna oggolaansho ma bixinno khidmadaha ah hay-addu hadday khidmad iska samaysato aan sharciga waafaqsaneen nidaamkaas ayagaa lagula xisaabtamayaa annaguna oggolaansho ma aanu siin wasiirna oggolaansho ma uusan siin waa caqabadaha ka jira nidaamka maaliyadda oo aan rabno inaan maalinba tallaabo aan qaadno tenderboardku waa hay-ad aad iyo aad muhiim u ah haddana shaqaa socota waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan caqabadaha in looga baxo marka intaasaan caddaynaya mudane guddoomiye arrintaas dabagalna in lagu sameeyaan rabnaa waxa naga agtayada yaallana ma aha wax loo dulqaadan karana maaha haddii waxaan sharci ahayn marka dabagal baa laga rabaa annaguna insha allahu haddii rabbilmada halkaan ka baxno siday ku timi iyo noocyadeeda iyo waxay tahay waa dabagelaynaa magaceedana waxaa igu horreeyey xildhibaanka igu horreeyey waa mahadsanya xildhibaanku su-aashayda koowaad mudane wasiir su-aashayda koowaad waxay tahay bulshada ka soo degta garoomada puntland waxaa laga qaadaa khidmad ah $60 haddii ay ka soo degaan qoys ka kooban 5 ilmood iyo hooyadood ma waxaa laga qaadayaa qoyskaasoo dhan min 60 mise waxaa laga qaadayaa qoyskaasoo dhan hal lacag ah oo hooyada keliya laga qaadayaa waxaan u soo joogay in qoys ka koobnaa 3 qofood in kulligood laga qaaday lacag dhan min 60 taasoo dadka ah dadka soo degaya aan macnuhu ku filaan awoodin inay bixiyaan lacagtaasi su-aasheeda labaad mudane wasiir su-aasheeda labaad waxaan doonayaa inaan kaa weydiiyo alaabaha bagaashka ah waxaa la tilmaamayaa inaad canshuur xaddaaf ah ku soo rogteen taasoo sababtay in ganacsatada u wareegaan meelo kale waxaa kaloo jira inaad xasiigyada aad u xidheen shirkad taasoo aan ku filnayn baahidii iyo tayadii dadka reer puntland ay u baahnaayeen shirkaddii aad u xidheen ay tahay mid tayadeedu liidato dadkii keeni lahaana aad tidhaahdeen canshuur dheeri baan idinka rabnaa taasoo ay awoodi waayeen mudane wasiir su-aashayda saddexaad waxay tahay dadka ka dhoofaya garoommada waxaa laga qaadaa khidmad $40 ah afartankaasoo ay tahay ay qaado corona test taasoo caalamka inteeda badanba la joojiyey oo aanba cidna weydiin warqaddaasi ma hadday qaataan $40 aan cidna la weydiin marka ma soo martay baarlamaanka ma soo maray arrintaasi saddexdaa su'aal baan qabaa xildhibaan cabdiraxmaan garoommada lacagaha laga qaado carruurta iyo dadku isku mid maaha waxaanse rabaa inaan weydiiyo abshir inuu ka jawaabo dhinaca dakhliga isagaa noo qaabilsan arrinta xildhibaanku sheegay abshir waxaan rabnaa bal inaad ka jawaabtid lacagaha la qaado garoommada laga qaado adoo mahadsanida wasiir kusoo dhawaagaasime si aad uga caawisid wasiirka arrinta khidmadaha ee dadka laga qaada dhoofiya ee xildhibaanadu weydiiyaan kusoo dhawaagaasime mudan guddoomiye waa mahadsan tahay khidmadda dhoofka ama dalku soo galka dadka wata baasboorka ajnabiga waxaa ku waajibay lacag dhan $60 qoyska ay ku jiraan carruur da'doodu ka hoosayso 15 sano sida diinta islaamku ay qabto wax
khidmada lagama qaado oo arrintaas dastuurkeenna iyo nidaamkeena maaliyadda ayaa ogol laakiin hadduu cunugu ka weyn yahay oo uu qaangaar yahay oo uu ka weyn yahay 15 sano waajib bay ku tahay in laga bixiyo lacagta fiisaha dalkugalka oo $60 oo ay qaabilsan tahay nidaamkeeda hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laakiin qoysaska carruurta yarar wadsaan hadda u caddaynayo wax khidmada uu ku waajibay ma jiraan intaasaan u caddaynaa insha allah waayahay xildhibaan cabdiraxmaan isagoo mahadsan su-aashiisa labaad waxa weeye canshuur dheeraada oo lagu soo rogay bagaashka hadda canshuur cidda soo rogi ka dhaaba waa baarlamaan annagoo canshuurta ma soo rogin abshir baan weydiinayaa lacagta dheeraadka ah oo lagu soo rogay bagaashka su-aasha la sii socota gadaal baan kaga jawaabi doonaa xasigiyada laakiin ma ogi wasiir ahaan mana jirto lacag canshuur ah oo aan bagaashka dheeraada ku soo rognay abshir ka jawaab su-aasha canshuurta lacagta lagu soo guddoomiyey adoo mahadsan abshir baan su-aasha u wakiishay mahadsaned wasiir ku soo dhawo mudan agaasime si aad wasiirka uga caawisid ka jawaabista su-aashaas waa mahadsantaha mudan guddoomiye canshuurta furdooyinka waa wax cad oo aan waxba laga bedeli karin laakiin waxaa jira madax la yidhaahdo excise duty oo ah canshuurta lagu dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha maadaama sida xildhibaanka uu taabtay ay jirto local production oo xasiigyada ah iyo caagaga isla markaasna aanu u protect gareenno loona dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha in aanu yareenno badeecadaha la mid ah oo bannaan ka imaanaya oo tartan kula jira waxaa jiray shirkaddaas uu xusay ama ganacsigaas shirkadaha ku midoobay inay laftigoodu qayb ka ahaayeen inay soo dhoofiyaan shirar kala duwan baan boosaaso kula yeelannay waxaannu ka wada hadalnay inay raalli ka yihiin in aanu dhaqan gelinno excise duty-ga oo ah 10% in kor loo qaado sida sharciga uu qabo excise duty-ga waa 10% wuuna jiraa sharcigu maalinba tallaabo ayaanu hore u qaadnaa sidaa darteedna waxay soo jeediyeen inay raalli ka yihiin in laga yareeyo badeecaddan si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha arrintaa ayadaana waa lagu guulaystay caqabadda meesha ka jirtana waxay ahayd shirkad imaaraad ka dhisan ayaa dullaan cad ku soo qaaday shirkaddan localka ah maadaama ay tasjiilaadkii iyo facilitigii ay haysato shirkadda imaaraadka ah waxay samaystay inay qiimihii ay wax ku soo saaraysay ama ay ganacsigaas ay ugu soo dhoofinaysay dalkeeda uga soo saaraysay soomaaliya u keenaysay ay dhulka dhigtay si loola dagaalamo warshadda keliya oo soomaaliya ee ka jirta ee wax soo saarka xasiiga iyo caagada sidaasaan ugu talagalnay waa siyaasadda dowladda in wax soo saarka gudaha oo idinku aad noo ogolaateen miisaaniyad walbana aanu soo raacinno aanu u dhiirigelinno wax soo saarkaas maaragtay warshadaha localka ah waxayna la mid yihiin warshadaha biyaha iyo noocyada kala duwan ee dalka wax laga soo saaro si loo difaaco badeecadda gudaha waa mahadsantaha guddoomiye xildhibaan cabdiraxmaan adigoo mahadsan baarlamaanka ayaa cabasho ka keenay waxyaabaha ka soo baxa dalka gudihiisa in canshuurta lagu siyaadiyo waxa innagu aynu awood u leenahay oo aan la soo baxayno oo haysanno lana ilaaliyo sida sharciga ama dastuurka puntland qabo qofka ah ganacsadaha puntland in la ilaaliyo oo wax soo saarkiisa la ilaaliyo sidaa daraaddeed warshaddan soo saadha xasigiyada waa warshad reer puntland leeyihiin waa warshad markii la baaray oo la fiiriyey ku filan awoodda inay xasigiyada geyso ilaa iyo etoobiya soomaaliya oo dhan ay dhaafiso sidaa daraaddeed waxaa duulaan ku soo qaaday shirkadda hadda uu sheegayo oo imaaraadka laga leeyahay oo ugu tala gashay in warshad ama shirkad guud oo puntland leedahay oo lacag malaayiin ah oo innagu aan leenahay ay ku jirto in lacagtaas la burburiyo sidaa daraaddeed sharcigaa qaba idinkaana faray inaan ilaalinno sharciguna wuuna faray inaan ilaalinno qofka ganacsadaha oo reer puntlandka marka sidaasay la mid tahay kuwa biyahay la mid tahay oo hadda uu xildhibaan dhuubana ka hadlayay bay la mid tahay biyaha warshadda ka soo baxa imaaraadka ka yimaada waa in la ilaaliyaa iyo biyaha halkan yimaada waa in biyahan ay la ilaaliyaa taasna canshuur badan tahay si ay biyaheen u socdaaneen marka qodobkaasna waa qodob sharciya coronaviruska dee wuxuu ahaa wax jiray markii hore oo adduunka oo dhan ka jiray
hadda adduunkii waa ka dhammaaday laakiin afrika weli kama dhammaan anugu hadda ingiriiskaan ka yimi markaan ingiriis ka soo baxayay waxaa la yidhi etoobiya waa khasaba waa inaad iska qaadaa laakiin markaan ka baxayay turkiga oo aan aadayey yurub aadayey laymana weydiin laygamana qaadin marka waa wax iska dhammaanaya haddii rabbi idmo haddeer meelaha la aadayayna ku xihan tahay haddii hadda etoobiya iyo la aadayo hadda etoobiya way ma ogola in iyadoo aan qofku wadan certificate-kii inuu iska soo qaaday ma ogola laakiin yurub iyo aanu intaan ka warhayo yurub oo kale waa la dayn karaa marka wasaaradda caafimaadkan kala hadlaynaa meelaha friiga ah in dadka aadaya oo tigidhadooda ay caddayna halka aadayaan transit etoobiya ku ah in lacagta laga daayo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa bacda salaan mudane wasiir waxaan ognahay wasaaradda maaliyaddu inay tahay wasaaradda u qaabilsan siyaasadda maaliyadda iyo dhaqaalaha dowladda puntland arrintan soo noqnoqonaysa ee miisaaniyadda ama bajetka waxa loo yaqaano bajet macnihiisa marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa 3 nooc waxa la yidhaahdo policy budget surplus budget iyo deficit budget waxaa hadda warbixintiina ku jirtay sida soo noqnoqonaysay in ay jirto isdhimis miisaaniyadeed waxaa kaloo jirtay inaad waxaa kaloo caddayn in lacagta aad dakhliga ini soo gala uusan weli si fiican u faahfaahsanayn sida priority-ga u kala bixisaan waxaan rabnaa haddii uu jiro marka isdhimis miisaaniyeed inaad maanta noo caddayso ma jirtaa wax dayn ah oo laydinku leeyahay waxaase noo caddaysaa lacagta dakhliga ini soo gasha expensive-geeda sidaad u bixisaan priority-ga su-aasha labaad waxa weeye waxaa tahay wasiirka maaliyadda puntland 30 sano u dambaysay lacagta shilin soomaalida iyadaa gaar u maamulanaysay wax uga imanayay dowladda dhexe ma aysan jirin maanta waxaa ku daawanaya dadka reer puntland oo dhan waxaan rabnaa waxaan kaa codsanaynaa inaad dadka u caddayso waxa qorshaha cad ee hortaagan lacagta intaa tirada leeg aa sheegtay in la socodsiiyo cidda hortaagan cidda ay ka socon la'dahay shacabka puntland jawaab waafiya bay rabaan wasiir u faahfaahi caqabadaha iyo cidda hortaagan iyo waxa ka socon la'dahay bangi dhexe oo Soomaaliyeed oo lacag inuu ka iman jiray inuu ognahay 30 sano lah ma jirto arrinta labaad oo saacad saddexaad waxa weeye su'aal hore lagu weydiiyey lacagta la qaado danta guud oo shalay la sheegay inay tahay xeer jajab dadka reer puntland ma aha dad hantidooda lagu qaadan karo xeer jajab lacag kasta oo sharci darro ah oo aan baarlamaanku ansixin waa sharci darro dadka hortooda ka caddeeya adiga xisaabiyaha guud inay lacagtaas u tahay sharci darro wixii hore loo qaadanahay sharci darro xisaabiyaha guudna inuu caddeeyo akoonka inuu san shaqo ku lahayn maamulin saddex su'aalood baan qabaa waa maasantii xildhibaan cabdishiid dayn ma laydinku leeyahay baa u horaysa dee daymihii hore oo ka soo wareegay dowladdu horena waa jiraan daymo yaryar oo hadba sidii loo heli karo loo bixiyo oo magaha ciidamada iyo waxyaabaha problemska ay ciidamadu geystaan ay ka mid tahayna waa jiraanin oo marba sidii loo bixiyo sidii loo heli karo loo bixiyo isdhinkii miisaaniyaddan haddeer dhacday oo aan kuu sheegayn oo halkan taalaana dee waa lacaga ina ka maqan waxaasoo dhan way jiraanin lacagta shilin soomaaliga ah horey baan uga jawaabnay su-aasheeda adigoo mahadsan labadaas su'aalood baan u malaynayaa inuu weydiiyey xildhibaan cabdiraxmaan shilin soomaaliga horaan uga jawaabnay lacagta danta guudna horaan uga jawaabnay saddexdaas su'aalood baa horaan uga jawaabay aad buu mahadsan yahay xildhibaan cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim su'aalahan iska gelaya maadaama aad loo daalay mudane wasiir waxaad mas-uul ka tahay miisaaniyadda dalka miisaaniyadduna waa xeer halkan waxay hor yaal riboodkii hantidhowrka uu la wadaagay baarlamaanka puntland sidoo kale waxaa isagan halkan yaal warbixintii guddiga dhaqaalaha sidoo kale waxaan dhegaysanay wasaaradaha iyo wakaaladaha dhammaantoodna waxay sheegeen ku takrifal miisaaniyadeed iyo inaana miisaaniyaddii cid walba oo madaxay xaqa u lahayn aysan helin mar haddii ay maaragtay miisaaniyaddii ay guud sharcigeed halkaa ay marayso hadda waxaa golaha hor yaal xisaab xirkaasi muxuu noqonayaa waxaad sheegtay mudane wasiir inaad
isticmaashid kala horumarinta markay joogto qodobka 6aad ee xeerka miisaaniyadda xeerkaas tira waxaa ku qoran kala horumarin sida wasaaradaha iyo baarlamaanka iyo shaqaalaha waa technicianka shaqada marka koomada lagu shubay lacagta ama sida loo qarash kareynayo loo kala horumarinayo laakiin markay timaado miisaaniyad isdhintay iyo miisaaniyad korortay iyo madax loo wareejinayo waxaa asala oo loo noqonayaa qodobka 64 ee dastuurka waana waajibaad golaha wakiilada ansixinta diidista wax ka bedelista madaxyada waa qodob dastuuri marka Soomaaliya in aad uu la mid yahay xeerkii miisaaniyadda xeerkii halkan baarlamaanku ku beesgareeyay haddana cabashadiisa maqlayso xeerka maareynta dhulka oo dhulka hadlayay loona bedelay lacag qodobkii ka hadlayay maareynta wasaaradda gudaheeda sida madaxyada u kala horumarinayso inaad awoodii madaxyada iyo miisaaniyadda hadday isdhinteen baarlamaanka la keeno hadday kororteen la keeno haddii madax loo wareejinay baarlamaanka la keeno inaad ku dabaqteen oo miisaaniyadda ay noqotay mid gebigeeduba maaragtay dicid gaar u xiran taas waa taas midda kale aan ku weydiinaya waxa weeye waxaad tahay wasiir kelimadtiid waxaad tahay madaxa reformka shaqaalaha iyo ciidamada waxaan ognahay halkan 20 kilomitir meel jidda dad reer miyiga oo dadkeena isku dilay waxaana laayaa 50 wiil ama oo kala qaada ciidamadii reform ku samaysay shaqaalihii markii noogu dambeysay waxa weeye iyagoo C77 loo saaray oo baabuurta inta shidaal lagu shubteen boosaas ay ku socdaan baa noogu dambeysay dhaqaalahaas kuma jiro miisaaniyadda ciidamadaas ay ku howlgaleen madaxaad ka bixisay noo sheegi kartaa waxa kaloo sheegtay inaad xisbiyada siiseen lacago siman meel la miisaaniyadda ugama jidho xagee bay ka baxda lacagtaas midda waxaa weydiinayaa agaasimaha dakhliga madax dhan baa ka maqan halka waxay u yaal wasaaradda xanaanada xoolaha maxjarada lacag baa ka soo xaroota waxayna sheegeen in lacagtaas soo marin wasiirkuna waa cadeeyay lacagtaas maxjarada maadaama aanay miisaaniyadda ku cadayn wasiirkiina sheegay aduna aad tir madax baan gelinay madax sida dastuurka ku cad halkan aan ka sheegay baarlamaanka baa samayn karo rari karo meel kale geyn kara marka lacagtaas kuma cadda madaxan waxaan rabnaa in iyadana la cadeeyo wasiirkuna waa cadeeyay intaas ku soo koobay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xildhibaan xaraf xisaab xirku aduu ku hor yaalla xildhibaan idinkaana fiirinaya sida uu yahay iyo qaladaad iyo wanaag hadduu leeyahay idinkaa fiirinaya miisaaniyadda iyo madaxyadeeda iyo sida ay yihiin waxaan rabaa guddoomiye adigoo mahadsan in uu sharaxo agaasimaha miisaaniyadda dowladda Puntland Cabsamed su-aashu waxay ahayd kala wareejinada miisaaniyadda ama waxa loo yaqaan environment iyo waxa la yiraahdo priority ama kala horumarin waxaan rabaa inaan faahfaahiyo xildhibaanku hadduu xeerka hayo qodobka 5aad wasiirka wasaaradda maaliyadda xeerku wuxuu awood u siinayaa marka la samaynayo kala wareejin ama madaxyo miisaaniyadeed oo hay'ad dawladeed ay soo codsato inay soo raaciso faahfaahin markii loo arko faahfaahinteedaas inay muhiim tahay wasiirku waa kala wareejin karaa xeerkaana awood u siinaya inuu sameeyo kala wareejin isla hay'adaas laakiin waxaa ku jirta wixii aan raasumaal ahayn weeye wixii adeegyo iyo gunnooyin shaqaale iyo shidaalle iyo waxyaalahaas oo kale running costs weeye waxaa jirta oo kale isla sidaas oo kale markay dhacdo xaalado emergency ah ama contingency-ga waxa loo yaqaan ama lama filaanka wasiirku wuxuu awood u leeyahay inuu kala wareejin sameeyo golaha baarlamaankana uu warbixin ka siiyo isla qodob kale isagana xeerka ku jira wasiirku markuu samaynayo miisaaniyadda raasumaalka loo yaqaan waxa weeye waxaa mandatory ama khasab ah inuu wasiirku golaha uu hor keeno una caddeeyo arrintaas waa khasab xeerkaan iyada laftigeeda caddaynaya waxaan rabaa qodobka isla xeerka laftigiisa qodobka 6aad inaan faahfaahiyo mudnaanta iyo kala wareejinadu wax isku xiran ama wax shaqo iskule maaha mudnaanta kharash bixinta xeerka tan lagu ansixiyey waxaanu eegaynay waxa loo yaqaano annaga cash availability-geena iyo sidii aan lacag u heli karno baanu usoo kala hirmarinay xeerkana ugu soo darnay sidaas waxaanu eegaynay duruufaheenna iyo dhaqaalaheenna waxaanu u aragnay number 1 ciidamada iyo raashimadooda iyo gunnooyinkooda iyo madaxda executive-ka howl socodsiinadooda iyo gunnooyinkooda inaan horumarino marka taas waxaan uga jawaabayaa midaas
lama sameeyo kala wareejinno wasiirku maaliyadduna wixii aan sharcigiisa xaggaa ku qoran ahayn adeer intii aan wada shaqaynaynay annagu marna may dhicin waa mahadsantihiin su-aasha kale oo ciidamada haddee xildhibaan reformna waa lagu sameeyey wasaaraddii amnigana waa idinka warrameen aniguna guddoomiyaan ka ahaa wax dalka u soo hagaagay oo dalka u wanaagsan in ciidamadu ay reform lagu sameeyey in taariikhda puntland intay jirtay ciidamada dawladda puntland ay mushaharkooda ugu dhaco akoonkooda in shaqaalaha dawladda puntland uu mushaharkooda ugu dhaco akoonkooda in dhammaan hay-adaha dawladda uu mushaharkooda ugu dhaco akoonkooda in laga baxo wax la yidhaahdo lacag kaasha oo qof qaado in laga baxo wasaaradda maaliyadda inta hadda anigu aan wasiirka ka ahaa dawladdan jirtay waxyaabihii guulaha oo aan gaarnay bay ka mid ahayd marka hadda cabasho maahe ammaan bay ahayd inaannu hello aad iyo aad baa u mahadsan tahay ciidamada waa la tababaray mushaarooyinkoodii waa kor loo qaaday agabkoodii baa kor loo qaaday 6 biloodba mar baa dirayskooda iyo waxooda la diyaariyaa loo geeyaa raashinadoodii baa kor loo qaaday wax mudan weeye waa ciidamada hadda buuraha saaran oo cadowga ina ka waardiyeynaya weeye hawlgallada wax la yidhaahdaa jira oo madaxya hawlgallada la yidhaahdaa jira madax la yidhaahdo lama filaan baa jira oo saamaxaya markaa wixii cusub in laga bixiyo oo lacagtii aad lahayd magsalan aad lahayd lacagtii xagee ka bixiseen madax la yidhaahdo lama filaan baa jira madaxa hawlgallada waa jiraan inuu xagga arrimaha ciidamada laga bixiyo marka arrintaas waxay la tahay ammaan inay dawladda puntland iyo wasaaradduba ku mudan yihiin arrinta maxjarkana waa ka jawaabnay oo waan ugu soo noqotay markii hore abshirna waa ka jawaabay adna waa ka jawaabay aad iyo aad baa xildhibaan ku mahadsan yahay su'aalaha iyaga intaas ku kooban yihiin